Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Isku soo noqod wanaagsan dhammaan ardayda waa idin salaamay. Waxaan qaadanaynaa caawa cashirkeenii shanaad ee ku saabsiisnaa barashada af Soomaaliga. Afartii cashiro hore waxaan kusoo qaadanay alifbeetada af Soomaaliga, gaar ahaan xarfaha waaweyn. Waxaan soo dhameynay ba'ta'dii. Caawa insha Allah waxaan gelinaa xuruufta yaryar ee ba'ta'da. Waxaa laga yaabaa dadka qaar inay garanayaan ama ay horey usoo arkeen. Qof walba waxaa laga rabaa qofkii yaqaanana inuu si fiican u sii barto, qofkii aan aqaaninna inuu si fiican u barto asne. Hadhow waxay naga caawin doonaan waxyaabo badan. Qofka hadduusan halkan ka dhisnayn way adkaanaysaa sidii uu ku baran lahaa luqadda Soomaaliga. Marka insha Allah caawa waxaan bilaabaynaa xuruufta yaryar ee alifbeetada af Soomaaliga. Akhriska waa isku mid, laakiin waxay ku kala duwan yihiin qoraalka. waa ba, ta, ja, xa, qa, da. waxyaabaha qaar waa isku mid. xa'da oo kale tii hore aad u weyneed, laakiin tan waa la yareeyay wax yar. wax saas u weyn oo isbedelay ma lahan, laakiin intaan kale waa aragtaan. ba'da tii hore ma ahan, ta'dii hore ma aha, ja'da waa aragtaan sidii ma aha, qa'da sidoo kaleento qaybtaan iska bedeshay, tanna way yaraatay, da'da ayadana way isbedeshay. marka insha Allah sidii hore ee caadada noo ahayd, qof walba ha soo qoro ee ha ii soo diro hadduu Ilaahay yiraahdo, weliba soo akhrinayo qofka. haddii aan ku celiyo mar kale: ba, ta, ja, xa, qa, da. ayagana waxaan ku dhammaynaynaa isbuucan, kadibna waxaan ku xijinaynaa shaqaladii. markaan dhammayno intaas haddii aan dhammayno insha Allah waxaan isku dayi doonaa in qofka uu isku xirxiri karo erayada. markaan intaas dhammayno waxaan ku xijinaynaa horta marka hore waxa la yiraahdo inaan israacino xarfihii ba'ta'da iyo weliba shaqaladii inaan israacino. markaan taas dhammayno in qofka marka uu xoogaa wax ka kicin karo insha Allah waa arki doonaa. la soco cashirka lixaad. guulaan idin rajaynaa dhammaantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.